shaqada wanaagsan ku qabateen waxaan oo kale weeyaan markay aad baan u xusayaa dhammaantii ka soo qaybgalayaasha shirkii ana ka dhanay Minneapolis aad iyo aad baan u salaamayaa inta haddaan ka sii gudbo waxaan doonayaa halkan inaan uga mahad celiyo ciidamada dawladda federaalka Itoobiya ee ciidanka qaranka oo ciidan shacab ah oo Soomaalida iyo cid kasta oo qowmiyadda Itoobiya ay ka mid tahay isbeddelka wanaagsan ee ka keeneen waxa weeyaan nabadgelyada deegaanka iyo dalka iyo tan caalamkaba waxaan dhihi karaa nabadgelyada maanta aan sida balaaran ugu fadhino waxa weeyaan waxa u soo horay dhiig dad badan oo dhashay waxa weeyaan deegaanka Soomaalida iyo ciidanka qaranka oo ka kala yimid qowmiyadaha shacabka Itoobiya marka waxaan leeyahay makalaka saraawdka iyo dhammaan qaab dhismeedka federaalka Itoobiya sida federal booliska iyo waxa weeyaan qaab dhismeedka kala duwan hay'adaha nabadgelyada dhammaan iyagana waan u mahad celinayaa aad iyo aad baad u mahadsantiin hambaliyo sida awgeed waxaan sanadkan ku hawlanahay sidii guud ahaan dalkan Itoobiya looga hirgelin lahaa 13 jaamacadood taasi oo mid ka mid ah jaamacadahaasna la go'aamiyay in laga dhiso magaalada Qabridahar si maanta jaamacadaas loo dhagax dhigona waxa halkan maanta inagula sugan oo jaamacadani dhagax dhigaya ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalkan Itoobiya Mudane Damaqe Mokonin sida awgeed waxaad idinku noqonaysaan kuwiina si weyn u helay ee ka faa'iideysta fursadan waxaan halkan keenayno oo aan halkan ka hirgelinayno ma aha dhismo kaliya ma aha cilmi baadhis wax lagaga bedelayo nolosha bulshada xoolo dhaqatada kaliya ma aha goob soo saarta aqoon-yahano iyo xirfadlayaal iyo ka faa'iideysiga kheyraadka waxaan sidoo kale halkan keenaynaa caruurta kala duwan ee qowmiyadaha iyo shucuubta dalkan Itoobiya sida awgeed deegaanka Soomaalida Itoobiya waxa hore uga jirtay jaamacadda Jigjiga markaan jaamacadan labaadna halkan ka dhignay waxay tusaale u tahay in dalkeenu yahay shacab midaysan isjecel iyo rabitaan ku saleysan heshiis Itoobiyaanimaduna ayna ahayn mid dusha laga saaray balse ay tahay mid ku dhisan jeclaansho iyo rabitaan midaysan in dadku ay ka muhiimsan yihiin dhulka waana sumada koowaad ee muujinaysa in annaga qowmiyadaha iyo shucuubta dalkan Itoobiya nahay kuwa u haya xanaanka xukunka dalka waxaan leeyahay bagaad ku faraxdeen bagaan ku faraxnay dhamaanteen የገብረዳህር ከተማ አስተዳደር 200 ሄክታር መሬት እንዲሰጠን እንጠይቃለን ካርታውን እንደተረከብን ግንባታውን እንጀምራለን ስለዚህ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አለ ለማለት ፈልጋለሁ ሃምባልዮ munaasabadani ballaaran ee dhagax dhiga jaamacadda Qabridahar ayaa waxaanu halkaasi dareenkooda ku aadan dhagax dhiga jaamacadani Qabridahar aynu wax ka weydiinay qaybaha kala duwan ee dadka ka soo qayb galay munaasabadda dhagax dhiga jaamacadda Qabridahar waxaan leeyahay dadweynaha dawladda deegaanka Soomaalida iyo dawladda hambalyo maanta waa maalin yani weyn oo maaragtay jaamacaddii labaad laga dhisay deegaanka Soomaalida marka sida loo ogyahay dawladda deegaanka iyo dawladda federaalka waxa uu yahay qorsho oo si maaragtay cadaalad ku dheehan tahay iyo maaragtay siday u helaan dadka ku dhaqan dawladda Soomaalida Itoobiya oo maaragtay waxbarashada sare ee heerkeeda aad u sareyso marka maanta dareenkayga aad u maaragtay u sareeya sababtoo ah jaamacadda Jigjiga oo maaragtay aniga asaaskeedii iyo ilaahay haddana madax ka ahay waxay ahayd maanta madinimadii ka baxday maanta marka aad iyo aad u maaragtay niyadaydu sareysaa way wanaagsan tahay jaamacaddan waa tii labaad laga dhiso deegaanka Soomaalida waa jaamacad federaal marka wax weyn ay ku soo kordhinaysaa deegaanka Soomaalida iyo gobolkan Qorraxay iyo dhammaan dalka waxay soo saari doontaa dad maaragtay waxbarasho heer sare helo marka waxay kabaysaa jaamacadaha kale dalka ka dhisan gaar ahaan jaamacadda Jigjiga kabaysaa jaamacadda Jigjigana xil weyn iska saaraysaa sidee hooyo hiilba oo la garab taagnaan lahayd waxna loo qaban lahaa sidii lagu dhisi lahaa jaamacadda dhismaha guryaha ganacsiga dhismaha dadka iyo wax kasta bismillaahir rahmaanir rahiim waxa farxad weyn ah inaan ka soo qayb galo dhagax dhiga jaamacadda Qabridahar oo faa'iido weyn u leh dalkeena iyo dadkeena iyo deegaankeena iyo gobolkan Qorraxayba faa'iidooyinka u badan ay u leedahay waxa weeye inaynu jaahilnimada ka baxno
kobcinteenna awoodood ay korodho in wax weyn bay ka qabanaysaa keliya ma aha inay waxbarashadan wax ka qabanayso dhaqaalahana waxbay ka qaban 9,000 oo ruux iyo dhowr iyo 10,000 oo ruux oo arday ah iman suuq buu magaaladu yeelan dhaqaalihiina wax badan bay ka kordhin dadka garaadkooga siyaasadeed garaadkooga arrimo bulsheed waxbay ka beddelaysaa waxaa intaa dheer dadkeennu waa xoolo dhaqata iyo beeraley qabridahar jaamacadda laga dhagax dhigayo ilaa goday webiga cilmi baadhista la samayn doono xoolo dhaqata xoolaheenna cilmi baadhista lagu samayn doono iyo wax badan bay ka qaban doontaa oo cilmi baadhistaas oo sidii dalkeenna loo kobcin lahaa iyo dadkeenna iyo xoolo dhaqatada iyo beeraleydaba loo kobcin lahaa wax weyn bay ka qabanaysaa baan aaminsanahay sidaan u arkay markuu horeyso deegaan ahaan waxaan u arkay wax weyn oo inoo soo kordhay baan u arkay sababtoo ah jaamacad heer federaal oo ilaa 18,000 ilaa 15,000 qaadaysa oo magaalada qabdaare laga dhisay oo meed ahaan iyo deegaan ahaanba wax weyn ayay noogu filan tahay taasna waxaad ka garan kartaa maaragtay ardaydii Soomaaliyeed deegaanka Soomaaliya u dhashay tagi jiray gobollada kale ama degmooyin kale tagi jiray oo meel u dhaxaysa ama dhexdhexaad u ah 9 gobol waxbarasho ka helay oo gurigoodii iyo hoygoodii wax ku baranaya oo waxa aan loo qiyaasi karin oo lagu farxo weeyaan midda kale iyana muhiimadda ah farxadda ah weeyaan wax weeyaan sidaan wada ogsoonahay deegaankeenna Soomaalidu wuxuu lahaa hal jaamacad oo heer federaal ayuu lahaa jaamacaddanna waxay noqonaysaa tii labaad bay noqonaysaa gobolladeeduna aad buu kala fog yihiin gobolka Qorraxayna wuxuu ku yaallaa bartamihii gobollada ku yaallaa marka tani waxay aad wax qabad u weyn ugu tahay oo waxtar weyn ugu tahay gobollada xagga xiga sida Goday Afdheer iyo Liibaan oo maartay ay aad uga fog jireen waxbarasho tagaan iyo Wardheer gobolka Doolo oo waxbarashadii ay agtooda noqotay marka taasi waxay waxtar u tahay oo wax qabad weyn u tahay dhammaan gobollada deegaankeenna ee dhinaca soo xiga marka jaamacaddana waxay noqotay jaamacaddii labaad ee heer federaal waana guul weyn oo u soo hoyatay dawladdeenna xisbigeenna iyo deegaankeennaban waxaan leenahayna welcome waana ku faraxsannahay dhammaan dadweynaha qabdaare iyo dhammaan deegaanka Soomaalidu way soo dhaweynayaan aad bayna u faraxsan yihiin wayna ku dabaashadayaan maanta aad iyo aad waan u faraxsanahay waxaan ku faraxsanahay jaamacaddan la dhagax dhigayo maanta ee qabridahar aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sababtoo ah mustaqbalka arday fara badan oo innaga ah ayaa ka soo bixi doonta insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo ardaydii tarhiibaysa xataa inay halka ku nastaan baa suuragala oo intay wax bartaan ay hadhow toolo kii deegaankooda ay u faa'iideeyaan ka shaqaystaan marka aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay waxaan hadda koobaad siinayaa madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaaliyeed oo runtii wax ballaaran ka qabtay magaalada qabridahar iyo gobolka Qorraxayba iyo dhammaan deegaanka Soomaalida oo dhan waxaan xasuustaa waqti halka shir lagu qabtay oo Meel Seenaawi iyo Cabdilmajiid ay joogeen waxaanu deganeen waagaas meel halkaas ayadoo xare ciidana yaa baatana magaalada waa garan waayay anigu yaa alxamdulillah waa wax weyn baa laga qabtay koolajyada iyo jaamacadaha iyo wadooyinka kala duwan iyo bulshadeena u bislaatay maanta inay wax qabsato laftigeedu aad iyo aad baa wallahi ugu faraxsanahay Cabdiraxmaan Bade waxaad ka mid ahayd aasaasayashii dowladda deegaanka Soomaaliyeed ee Itoobiya xubnihii ugu sarreeyay deegaanka Soomaaliyeed ee Itoobiya soo mara wax badan way soo dhaqaaqeen arrimo kale oo fara badanna way niga dambeeyeen marka ififaalaha deegaankeenna mustaqbalka bal ka waran halku sidoo socda maslada deegaankeenna haddii ilaahay madaxweynaha inoo daayo waxaan aaminsanahay in geeska Afrika inaynu number 1 noqon doono sidoo ku socdo oo waliba Somali region ama deegaankeenna inuu deegaanka koobaad noqon doono oo deegaanada kale Itoobiya inaynu xawl ku dhaafi doonaan aaminsanahay munaasabaddan taariikhiga ee aanu ka soo qayb galnay ee lagu marti qaaday waa munaasabaddii dhagax dhigga qabridahar University qabridahar waa meesha kililka kala badha waa meel ku habboonayd caasimadda kililku inay halkan noqoto laakiin duruufihii kala gedisanaa ee gedgadoonka badnaa ee kililku soo maray ayaa saamixi weyday aad iyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay munaasabaddan taariikhiga ee lagu dhagax dhigayo jaamacadda weyn ee kililkeenna ugu weyn marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay Ali Cabdi Ciise waxaad ahayd siyaasiyiinteennii ugu horreeyay deegaanka Soomaalida Itoobiya oo soo joogay waxyaabo fara badan baad xasuusanaysaa iyada oo ardaydeena ama u dhalatay deegaanka Soomaalida aan magacooga xataa la ogolaan jirin inay jaamacadaha ama dugsiyada hoose galaan bal maantana jaamacadaha ay deegaankeena ka furmay
isbeddelka u dhexeeya bal maanta ka hor والله ووح إلهي لوجو ما هاد نقو جامعات دي وجورجا كوجو تمد أو تيل لباد أو إنه فرنتي أو إلهي لوجو ما هاد نقو باش وجوده ولو تجي واحد السابع ويل كجودي يوم حوها فيل تكسو تجي يو مو ياله السابع تجي ميلاد وقفك بهيد inkastoo meelaha qaarkood badda ay jaamacadu imika ka fogyiin deegaankeenna haddana dadkoodii bay dhex joogaan oo ma dareemayaan qaribnimo marka waxaan isleeyahay waxay kobcin doontaa tirada dhallinyarada inoo soo baxaysa ee ku dhiiranaysa inay wax barato halka ay ka dhacaysay duruufo badan oo aanu saamaxayn ama kuwa dhaqaale oo ka hor joogsanayba inay galaan ama markay galaan inay drop out noqdaan inay meesha ka baxday baan filaya marka isbedel weyn baa kililka ka jira oo la rabo in aad loo taageero oo nabadgelyada la xoojiyo oo ayaan aad baan ugu faraxsanahay runtii waan qiiraysanahay hadalku uu kala baahsan yahay aad baan ugu faraxsanahay munaasabadan marka ugu horeysa haddii aanu nahay odayaasha deegaanka dawlad deegaanka Soomaalida guud ahaan ummadda Soomaalida ee deegaanka Itoobiya ku nool gaar ahaan gobolkan Qabdahre dadka shacabka ee ku nool aad bay farxad weyn noogu tahay jaamacadan Qabdahre ee maanta dawladda federaalkihi ay u timid halkan kada isuna diyaar gareysay in dhagixii u horeeyay la dhigo taas waxa weeye sharaf ummadantada iyo waxbarasho iyo horumar iyo nabadgelyo u soo kordhay weeye waan ku faraxsanahay dawladda federaalka guud ahaan sagaalka kililba xil guud ahaan ba ka saaran kil kastaana wuxuu leeyahay dawlad iyaga u gaara oo xilkoodu uu saaran yahay taas oo hadda kooruba wax badan ka qabatay eegankadana dawladda federaalkihi ay bilowday xilkii guud ee sagaalka kilil ka saaraa in ay sida maartay hadda deegaanka Soomaalida ay u bilowdo jaamacad inay ka dhisto taas waxa weeye wax aan kolkooruba ka filaynay waxaan kale oo quudaraynaa wax badan iyada oo dawladda federaalkii ay ka qabatay deegaanka Soomaalida federaal ahaan oo xagga dariiqada maartay waaweyn iyo xagga laytriigaba iyo waxyaalo badan ay ka qabatay tanna in ay waxyaalo fara badan ummadda u faa'iideeya in oo isdaba jooga oo kala gugu'in in ay sida ay hadda tan u bilowdo kuwa kanana u bilaabaan noona dhammaystiraan waad mahadsantiin gobolka Liibaan baan ka socdaa Ali Baro baa la yiraahdaa madaxdii dalkan wax ka xukumi jirtay baan ka mid ahaa hoggaan baan soo maray bilowga kililka la bilaabayo dirdhaba ka mid baan ahay goday ka mid baan ahay jijiga dadkii asaasay oo dawladda asaasay baan ka mid ahay annagu markaan joognay dad isjiijiidaye dadka maaragtay kala dambeyn lahayn kala dambeynta sharciga waan jirin oo dhinac walba loo dhaci jiray gobolkan oo maantaan joogno oo la dhagax dhigayay jaamacadda anigu weligay ma arag gobolkan xukumayo buu ahaa taasna waxaa sabab u ahaan jirtay nabadgelyo darro waddanka ka jirta laakiin maanta farxaddaan farxay ma soo koobi karo Qabridahare jaamacadda ummadda Itoobiya oo dhan wax ka dhigan doonto oo loo dhagax dhigaya waa hambaliyo baan leeyahay dadka xukunka haya waad ku guulaysateen nabadgelyada waad ku guulaysateen horumarka waad ku guulaysateen sinaanta waad ku guulaysateen xagga maaragtay maamul wanaaga annagu waan idin bilowna mooyaane dad kala dambeyn lahayn oo shaqaduba waxay tahay maaragtay intuu iska dhaafo isagu kala iska shaqayn jiray macnaha isjiidi jiray baanu ahayn guusha dhalisay waan ku farxay waan idin duceynaynaa waa idin garab taagannahay jaamacaddan ha noqoto tii hoggaamin doonta maaragtay Itoobiya oo dhan reer Itoobiyana uqdadii naga qabi jireen oo dhan way ka baxeen maanta waxay u socdaan xagga xuduudka kililka shanaad bay u socdaan waxaan arki doonaa jaamacadda saddexaad oo xuduudka laga dhisi doono insha Allah hambaliyo baan leeyahay madaxweyne adaa ku guulaystay nabadgelyada horumarka
kala dambaynta sinnaanta cadaaladda wax walba ood ku guulaysatay waan ku garab taaganaa mahadsanid بسم الله الرحمن الرحيم waxaan maanta lama soo koobi karo shucuurtayda siday tahay iyo quruxda madashan meesha taala waxaan aad iyo aad marka hore ugu mahadinayaa ilaaha weyn ee maanta na waafajiyay madaxweyne marka hore waxaan hambalyo halkan uga dirayaa madaxweynaheena Cabdi Maxamuud Cumar iyo wafdigeena iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka imanaya halkan yaan aad ugu mahad celinayaa ilaaha weyn oo waaxid ah yaan ku mahadinaynaa marka waxa weeyaan maanta aan ka soo qayb galnay dhagax dhigii jaamacadda University Qabri Dahar aad baan ugu faraxsanahay si ay horumarkan aan gaarnay maanta aan meel ka sareysa aan u sii gaarno yani waa waxaan la soo koobi karayn shucuurta maantayda aniga naftayda maanta aan arko يعني waa ilaahay loogu mahad celiyo dawladeena loogu mahad celiyo xisbigeena dimuqraadiga shacabka Soomaaliyeed ilaahayna ha noo daayo ka horumarka noo horseeday weeye madaxweynaheena waligay Ilaahay maan laba eray isku ma hagaajin laakiin si maanta ay shucuubta iga muuqato ayaan ka hadlayaa waxaan leeyahay madaxweynaheena aan jeclayno wafdigeena wacano ciidankeena wanaagsano haddii aad wacdigii gudateen marna aad waddankeena iyo walaalooyin kaleeto waaye soo socoteen anana waa idin sugaynay ee salaan aad u wanaagsan wadnaheena ku taala naga hooya madaxdeena iyo madaxweynaheena ilaahay waxaan ku mahadcelinayaa in aan maanta guul aan joogno waxbarashadan biyaha tacliinta wax walbaba maanta aan waddankeena ugu nimid ilaahay mahadiis weeye waxaad noo horseeday xisbigeena dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya oo aad ugu faraxsanahay ilaahay cimrigiisa noo raajiyo ilaahay iidankii waxaan ka baryanaa ilaahay inuu sida noo isi ka fiican ilaahay noogu wado insha Allah khayr baan idin rajaynayaa magacaygan waxa la yiraahdaa Rooda Xasan Cabaade anigoo ka socda marka hore inaan ku fureeyay qurba joogta deegaanka waxaan mahad kale u celinaynaa madaxdeena wasiiradeena iyo dhammaan qurba joogta iyo shacabkeena oo dhan ayaan mahad u celinayaa khayr Allah idin siiyo jazakallah anigu waxa la yiraahdaa Axmed Sheekh Cabdiraxmaan waxaan ku dhashay Qabri Dahare dugsiga hoose dhaxan kaga baxay waxaan jeclahay inaan in yar ka sheego taariikhda deegaanka uu leeyahay ama sida geographiga dhulkiisu yahay ama sida maaragtay deegaankiisu yahay ama sida bulshadiisu ahayd maamul dhaqameedka waddankan u lahaa dhammaantiiba meeshii deegaankan golahiisa guurtida iyo boqorkoodu fadhiyey bay ahayd Qabri Dahare qoraxay deegaankan wuxuu yahay ciidaha wadamadu leeyahay xagga geographiga haddii aan u kaco dhulku nooca uu leeyahay ama qaybaha uu leeyahay carramadowda ciidda dibirka iyo dhaxtaalkaba ah ayay leedahay dhulbeereed bay leedahay uu toga ku faafo oo faafan iyo jarar markay isku soo darsamaan toga faaf la yidhaahdo ee mara ayaa banka qoraxay markuu gaadho ku faafa dhulbeereed saasana way leedahay buuro way leedahay ku gedfan oo doha iyo dul ah dhulkii sare ee ciidda ahaa oo dhulka ciid la dhahaa iyaduna way leedahay markaa buuraha teedka saa u kakaca deegaan degana leh carramadowda iyo suubaanka deegaankeedu sidaas buu ahaa markii ugu horraysay la degey waxaa lagu qiyaasayaa hal qarni iyo waxa yar oo la jira waxaa ka dhismay
maamullo fara badan maamulkii kacaankii daraawiishta Sayid Maxamed Cabdulla Xasan wuu degay laba daaroodoo daarna daartii dagaalka ay tahay daarna daartii deegaanka tahay oo daartii deegaankana la dhihi jiray indhacad daartii markaa waxaan jeclahay anoon taariikhda dhammayn karaynin ay deegaankanu leeyahay iyo barwaaqadiisa iyo xoolo ku dhaqashadiisa iyo golihiisa nabadeed ee odayaasha iyo boqorkooda iyo cayncaynka ay tahay waxaan jeclahay waraysiyo kale ayaa idinku siin doonaa aad baad u mahadsantihiin magacaygu waa dayib maxamed barkhadle anoo ku hadlahaya magaca jahliyadda Finland waxaa maanta sharaf weyn ii ah aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan maanta ka qayb galo jaamacadda Qabri Dahar oo la dhagax dhigayo maanta inaan ka qayb galo oo cimrigaygu igu simo inaan arko maanta jaamacadda ugu weyn bariga Afrika oo laga dhigsayo magaalada Qabri Dahar runtii maanta shucuurtaydu ma qiyaasi kara sida ay tahay marka waxa weeyaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxa kale oo mahad u celinayaa ilaahay baan mahad u celinayaa waxa kale oo mahadsan xukuumaddii ka soo shaqaysay guud ahaanba barnaamijkan iyo horumarkan ka muuqda maanta Qabri Dahar xukuumaddii dejisay u fikirtay ku tallaabsatay har iyo habeenba u soo jeeday iyadana aad iyo aad iyo aad iyo aad baan u salaamahayaa aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay wabillahi tawfiiq anigu waa Ramla Xaaji Maxamed Xaaji Warfaa ana dadka u dhashay magaaladan Qabri Dahar kuna dhashay abiyeysir roolaha waxaa farxad weyn ii ah dhagax dhiga maanta jaamacadda la dhagax dhigayo Qabri Dahar waxay ka mid tahay guulaha balbalaaran ee uu soo hoyiyay xisbigu waxaad moodaa 5 sano ee xisbigu wahayay waxay u dhigantaa 50 sanadood wixii la qaban lahaa in la soo qabtay waxaan rajaynaynaa 5 soo socotana 50 sano inay noqon doonto 100 sanadood oo kilalku uu gooyay mahad ilaahay baa iskale inu mahad celinaynaa dawladda federaalka hogaanka xisbiga Cabdi Maxamuud Cumar aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa ilaahay ha idin daayo halka ka wada baan leenahay bismillaahir rahmaanir rahiim ana magacayga ku bilaabaya Khadra Maxamed Shukri waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay xafladan qiimaha iyo qaayaha badan ee aan maanta ka soo qayb galay intaas oo kiiloomitir aan soo soconay ilaa Qabri Dahar oo isleeyahay deegaanka jaamacaddan Qoraxay waxay ku soo biirin kartaa horumar aad u balaaran iyadoo ognahay muxuu ahaayay qiimaha iyo horumarka aan ka gaarnay jaamacaddeena weyn ee Jigjiga bar labaadna waxaan rajaynayaa jaamacadda Qabri Dahar inay balaarin doonto aqoonta iyo tayada dhalinyarteena iyo dhammaanba deegaanka Soomaalida Itoobiya waxbarashada dhammaanteen aad iyo aad baan ugu faraxsanahay xafladan qiimaha iyo qaayaha badan aadna waan u soo dhawaynaynaa marka hore waxaan ka saamayaa mas'uuliyiinteena oo horkacayo madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar iyo maamulka suuban iyo dhammaan mutasharraf ka soo qayb gashay anigu hadda macnaha waxaan soo koobi kareyn farxad iyo moraalkan hadda kaan ku hayo ilaa shirkii Minnesota ka dhacay ilaa wareegii madaxweynaha inta baan aad u taageerayo taasoo macnaha farxad macnaha hadda ma iman kareyn karo inta macnaha moraaliyan ku faraxsanay markaan goobtan sida quruxda badan loo agaasimo yimid hadda wax badan ma raba inaan dhaho laakiin xisbiga iyo dawladdeena rabaan yarnaan ka hadlo waxaana leeyahay xisbigeena awgii guul baanu gaadhno gaar horumarkeena iyo geesiyada liyuuga goortii timaadaba u gidaashan hawsha inta ay gelayaan cadow ay gubayaan waa mid aynu gaadhno maamulkeena suuban miisaan ku dajiyay madaxweyne daacada dalka horumarkiisa iyo jecel dibdhiskiisana dee qeybo weeyo duurkii maadaba maskax buu dakeeyaa waxaan halkan ka salaamayaa marti sharafta qurba joogta odayaasha iyo meeshan mas'uuliyiinta sida fiican ugu soo dhaweeyay dhammaan waxaan leeyahay hambalyo bismillaahir rahmaanir rahiim dhammaan waxaan salaamayaa shirweynahan halkan lagu dhagax dhigi jaamacadda Qabri Dahar University macaan aad baan u mahadsan yihiin dhammaan dadka ka soo qayb galay madaxdeena ugu sareysa cuqaasha haweenka waxgaradka dhalinyarada dhammaan dadka iskaga yimid dal iyo dibadba aad baan u salaamayaa marka koobaad marka labaad aniga waxa la yiraahdaa Ifraax Axmed Cabdullaahi waxaan u dhashay gobolka Doolo waxaan ahay ururka Sadiyow Sweden haweenka baan ahay magaalada Gothenburg loo yaqaan ururka haweenka halkan waxaan ugu hadlayaa afkii Sadiyow oo dhan hadday tahay America iyo hadday tahay Yuruba dhammaan Sadiyow meel kasta ay joogto waan salaamayaa maanta waxaan ka qayb galay anoo in matalaya dhagax dhiga jaamacadda Qoraxay University waa jaamacadda ugu ballaaran dawlad deegaankeena tii Jigjigo labaad sida madaxweynuhu noo sheegay way ka weyn tahay tii Jigjigo ku taala Jigjigo University tanna waa Qoraxay University
aad baan ugu faraxsannahay dad badanna way ka soo qayb galeen qurbajoog hadday tahay iyo qaranjoog hadday tahay iyo madaxdeenna hadday tahayba madaxweynaheenna cabdi maxamuud cumar mudane aad iyo aad buu u mahadsan yahay guusha uu noo soo hooyey uu nooga keenay federaalka waan ku faraxsannahay qoraxa university gaar ahaan gobollo badan oon annagu ka mid nahoo doolla ka mid tahay aad bay uga faa'iidaysanaysaa waa farxaddii koowaad waana aad wax loo muhiim ahoo maxaa la yidhaahdaa ka qaybgal wanaagsan baan ka soo qaybgalnay waana farxad baan leeyahay dhammaan xisbigeennu ha guulaysto doorashada ha ku guulaysto meel walba ha ku guulaysto wax ballaaran buu noo qabtay wax ballaaranna way noo soo hoyeen in badanna waan ka sugaynaa sida la sheegaya maxaa la yidhahdaa sokortii oo kale oo la dhagax dhigayo goday aad baan farxad weyn oo guul oo cajiibay noo soo hoyeen حشي الرحي تشادي الولاي قرا رجادي حبله بدل حشي الرحي تشادي الولاي قرا من يسوع تلابك دايما وقشوع يكون تيداي قلبك يسوع تلابك دايما وقشوع يكون تيداي قلبك ورتدابيك يدحض الابادتان وروحها دميس كان كوكايبي ورتدابيك يدحض الابادتان وروحها دميس كان كوكايبي اسندها جلكي يبقى ونها هذا كوغو قري هذا كوغو قري لقبو شعي اسندها جلكي يبقى ونها هذا كوغو قري هذا كوغو قري لقبو شعي قبري دهر نتاقي سوما نراقوي ويقى قروح ضيق عيب لابو دبري قبري دهر نتاقي سوما نراقوي حدا نقرع مقون وقرب حضرتا مالنكا قيامة بالمادو يلي حدا نقرع مقون وقرب حضرتا مالنكا قيامة بالمادو يلي قياسكيلا هي غير بنكا بحشي ورشتي دقان كي قبول متاهي قياسكيلا هي غير بنكا بحشي ورشتي دقان كي قبول متاهي جلكي يبقى يومنا هذا كوغو قري هذا كوغو قري ميلوكا بوانشاوي أسندا جلكي يبقى يومنا هذا كوغو قري هذا كوغو قري لوكا بوانشاوي
qalbiga